هالجنتي بان هاي هو صار باتوتي بان هاي هو كعورنتان هاي هيجنا شقة لورنا البيبان هانتي إذا وقنا ما تمشيتوا وعنوا هالجبل يا أولاد إذا يعيد ما الله ما تاني كنيف لقوا حري كنيف فؤاد يوسف علي لقوا حري هتان لا يعيد ما ندالن قبل ما سيحنين بل ما سيحنين ساسن هيجنا وهاني حسن قولاد يلا الجبل يا أحمد ديني حسبك يا وحوها كانت تروى وحنا لا شقينتي ويبعث على الفنع ولا شقيني والله وذكرنا يا أنيقة ما أنت وعن كوز هاي عن كانوا شقيستي أنا سهل جمي أنا سداو جوجي بتكسر جبوتي صاروخنا كدوات وسرات كاسكم وقضاء كل لها ماشى الجرا وأبرت حرية نقلنا هاي أما الرياض لقدي جاي يا جناش والسلام تبعينا يا بنا ما أنت روح بكم عايزتو وحنا شاقي تلوينا رجع جبوتي ما أنت تدك على كوسال جمي إنه وحبا كويسين أولاده ده كل حين كنيف إذن وقين وعويان وكلد النار تلس كمان تعيا وكلد النار رجعنا بتلا واحد انتي يا واحد في ويان وحلا ولا ليال أو ولا ليال هو يدي ودك حدانا حي إنك يقول باتي سيء وحريه ولا كيسين وسال جمي صباح ما تجرب شوك سدا يجرب شوك سدا تضمون لا يبلي بانجلا وحلا فؤاد سندبير لو سو سيداي هدي كانت دحدا جبوتي waa loo joogaya ilaazad فؤاد waxa doon nabad loogu soo siidaayo ya hadii ay rag cabsoon rag iyo dumar maanta wada taaganaan anagu waa taaganahay waan dhimanayna anagu diyaar baan u nahay inaan dhimano فؤاد la soo siidaayo hadii فؤاد la soo siiday waayo oo noloshu waa noloshu ku jira noloshu waayo waxa ka dhacana oo ma jiraan leenahay xabada la soo daadinayo rasta soo daadana naga ma qaado ilaahay waa wax dila ka waxna waa rabbi سيدا يا فؤاد بالانا هلكا وكا بحشي يا رجوك سدا عايز سوق قاعدين
diidaynaa dulmigaan diidaynaa بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته halkan waxaan ka salaamayaa ummadda nabi maxamed meel kastay joogaan soomaalida kuwa dal jooga kuwa dal joogaba waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaamna waxaan leeyahay inankaa yar carruurtaan dhalagadaada taqriiban markaa sidaa u eego intaydan bulada ayaan u malaynayaa dalka u dhashay duuliyaha ah ee dadkii maanta faa'iidada noo lahaaya amba tiradaba noogu jiray tirsanaynay ee maanta gar iyo maglaanta halkaa u jiifa berri iyo sahan dambe iyo been iyo waxaa jirin lagu maaweelinayo dadka waxna aan loo qabanaynin ila binaadamka waana la xidhaa waana dee laga jawaaba wixii lagu xidhay iyo dee milayada ah waxyaabihii qabanaya xeerana waa lasoo hordhigaa ay wixiina jirin maaweelada ah bishaasoo maanta bishii noogu kulleyd ee noogu darnayda ninkaasoo iska tabaalaysan oo iska xanuunsan sida dee binaadankaba ay xanuunada ugu dhacaan xanuunada mid la qaadi karayo oo dee mid ay ku gaarsiinaya mid aanan ku gaarsiinayn baa jira kaasoo maanta isagu ka turjumaya kulaylka inuuna xanuunkiisu munaasib ku ahayd uu meel gaarsiinaynin dee ma garanayno dawladda uu ka dhashay iyo dadka uu ka dhashay iyo dadka maanta xukuumadda haysta ee naxariista halkaa ka joogto ee ninka sidaa u tabaalaysan u garan waayo inay wax kale hadday u waayaana meel uu ku nasto oo xaniinkiisa kaga nasto ay geeyaan marka waxaan weydiisanaynaa dawladda dee annaga wax sharci iyo xaq oo ka socda ma arkayne dee xaqa isku sheegaysa inay ka tanaasilaan dhibaatadayna kaa yar haysa ay xaquuqal insaanka ku darsadaan iyo dadnimada iyo naxariista iyo iimaanka ilaahayna sii ummaddaba ugu naxaydo ku darsadaan ka u weyn iyo ilaa ka gargaaraya ee garab joogaba inay tashadaan ay dee ninkaasi loo maleeyo dembiga dee malaa'ig maaho bini aadamkuba dembi way galaan xadku doona ha lahaade laakiin haddana waxaa jira xeer baa jira waxaa jira wax sharciyaa jira waxaa jira wax dee xaqu kuu gooyo waxna kaa gooyaa jira intiiba ma hayo inaa xaq loo helo ninkaa duuliyaha ee maanta meesha daran yaalla ee xanuunka la tabaaloonaya inaa xaq loo helo xaqii ilaahay ummadda waafajiyey ee loo dhisay dawladdaasi inay xaq u shaqaysa ha helo cadaaladda waan ka dhaxsanay cadaalad ha helo ninkaa ha loo helo wixii uu halkaa ku fadhinayay iyo siduu caafimaadkiisa ku helaya labadaba ha loo helo sidoo dhaqso badan annagu hooyadii dalka haddaan nahay in badan baan soo ammaanay aabbaha in badan baan dalka soo ammaanay ilaa yaraantayada ilaahay markoon cudub joogno waan ayidaynay laakiin markuu arrinka faraha ka baxa maxaad ayidin xaq darro baad maalin walba gacanta u taagi annagu haddaan hooyadii magaalada nahay oo hooyadii dalka nahay oo hooyadii sidaa ganta nahay maanta kuma garab joogsanayno madaxweynaha dhibaatada ina kaa yar ee dhiibnaaga haysato kuma garab joogsanayno annaguna waxaan leenahay ilaahuna maqal kumana raacsanin kumana garab joogno insha allah bismillahi alkarim ilahina waxaan ka rajaynaynaa inay ilaahay meel khayr qaba uga soo bixiyo ciidan awliyo oo ilmahaasi xaqiisa la helaa isaga iyo gabadhaa yar ee cawraddaa ee ilmaheedii iyadiiba kala go-een ee dhib iyo dhibaal ay geysatay aan garanayn hebel hadduu dhibtoonayo oonu waxaan dhulkan ku dhibtoonayno intaan ka dhibbaxayno faraha ka qaada dee shaqada tilibee deerkii makamay gubine loo xeer day waaye ilmaheeda la eegi waayo dumarnimadii loo eegi waayo wax walba la eegi wixii hore usoo qabata la eegi waayo intaa ka dambaysana dee mahar baa loo jiida annaguna lamidun baa nahay laba dumarkan soo galaya ee hadlaya ee dadka iyo dalka u hadlayana intii hadasheeda wax fiican ku hadashay waa la garan laakiin inta aan qaran ahayna qabiil ku hadlaysa haleen qabiilku meel bay nima gaarsiinaya maanta meel uu qabiilini gaarsiinayo amba ina wada gaarsiinaya ma jiro wixii dumara ee xaq u hadlaya ee dadka iyo dalkaba arkaya shalayna waa u hadlayeen maantana inay xaqa ka hadlaan xaq way leeyihin laakiin inuu iyadii oo gaajoonayso sharaabaliin leeya oo daaqad fadhida qalolada caddaadan si laxoo xudubaysay turabkiila bac ku dul noqday inaysa soo dartay waan dharagna waa fiicanna maxaan dharagna waa fiicanna bilaa biyaa layaho laysku wareegiyo la wadaagagsan yahay bilaa iskoollaa la yahay shoomeer baa lasoo dul fadhiyaa waa la wada tabanayaa marka meeshii la yimaadana taabacaad baa imanaysa dee nina rasaas lagu dili maa nin afka laga goyn maaye in badan baan daboolayn oona cabsoonaynin waxa laga cabsooday waa ilaahay waxa laga baqday waa ilaahay laakiin xaq walow kaana mur waa xaq ninkaa gardaro ku xidhanya waxaan leenahay monsieur le président ninkaa ka tasho ha ku gaadhin meel daran iska soo siidaa haddii ilaahay kuu qadaro caafimaadka kuu gaayo iska soo siidaa ninka iyo gabadhaa yar iyo qaar kaloo lamidaba oo wax alaali wax macnalay sameeyeen cajaladana la duubo qof laga yidhaaxaas wax socda maaha mas-uulku caybu u yahay mas-uulba kolku mas-uul noqonaya ku talagalay inuu cayda qaato inuu dhibaato walba qaato inuu dhabar yeesho uu isoo eegay iisoo qabo meesha ma socoto wuu iga yidhi iisoo sheegna meesha ma socoto markaa sidii aad mas-uuliyadda u qaaday sideedii
ودمه هدو إلهي هذا ضد كان أكل حكم حقنا أكل ور أنت مركان حق عنده وحاجرت جبر سعاد ولا هذا سعاد شيخ لا هذا أو الصومالي بكمل السيء هاي أو وحي غير كل اسم لا جرن أنا جرن وحي كل دي إلى مويان وبني آدم كم عاي كل ده كان نين عاي تمينا نين نفل ماها نين عندك كل جرنين يدك كان نين ماها يدا نوحنا شيء لها عيدا بني آدم كعايس قبل غير كعايس waxay jireen ka dhigaysi aqalka yar isku oodaysid ee afar qofood eedo haysid aad ku jawaabaysid ee kan ninka iska dhigay leedihiin muxuu ahaayay la korka libax la iska dhigay libax direed isku soo qoray de libaxnimada halkayba kaaga iman dumar baabadood joogta dogarada waa isaa ka dhex kuuf ay u sheeg buufi aad leedahay nimadaada adigana halkaa way kaa gubataa kulay libaxnimadana ku khasaari libax baad sheegay bisadna uma dhowil aduguna adoo halkaa kaga har dumarka هذا ده جوتنا هذا بقول إيه روح كقادم إيش إن أنت كلا سوى حشية يا سؤال لي هاي حاجة ده مجرد ناقتك ورئيسة عايدة ما تحمتي تقول كل عادي جاي ناقتك وسوي ويدا ولي بمحاها هاي أتكلم محاها يسأي صوت بلا عادي جاي ما أنت ناقتك وده جوال سي سلام والبا ما حركة الحاجة ده أفكار وعادي جاي مركا 10 كادك ومضوا قاعدتي وحد حاجة ده ولا تكتي ده ملا هذا ديار هذا وده الدون يوم ما قرنا هنا كيف بتكل كوربه adiga laha adu afkaagu beeraa ku korabeed xumo gabadha mas'uulkee waxinii la galay imikana ummadda waxaad ku shiratay ma jira milcaamada dhigta laga dhigtay waa kow ina ka yarna dambigiisa fi akhribaad ilaahay ku diin ahmadiiti ciyalkiisa maanta banaanka kaga xiran ta kalena qolo baad ku shaqaynaysaa wax qaran oo meesha ku yaala ma jiro taan waa ku khasawday ummaddu waa wada qaran 12 ka dabeeciisa waa wada qaran waa wada dad waa wada walaalo waxa kala qaadi kartaa ma jiro marka iimaanka isku jalis odaygaagii reerkaagii ubadkaaga dhaqo arrimaha aad waxba ka qaban karayn oo kolkor dadka kullu goosad ku riday maanta afartan ciyaal ku fadhida eedahay ka daabuuqa ablaha awradeen kula joogin ee ka maqanid caayis cambaaraysidna waa lagu la xisaabtamay iyadana ka daa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh